social media guud ahaan baad nagala soconaysaa ay timid tooska runtiyo marka waxaan leeyahay labada dhinacba uu caawa in iswaaleen baan arkayaa ya Guardiola kale caawa garoonka baa loo taagan yahay ya Ederson Kyle Walker Ruben Dias John Stones Shevchenko Gundogan De Bruyne Bernardo Silva Mahrez Phil Foden Sterling horta City rixin Sterling ku soo daray meesha laakiin waxa dareemaysaa haba soo Sterling horta waxaan ilduufa la adiga habeenku waatan ku dhijiro marka lagu garaaco meel baa lagu maraya adigoo bariyaha dhanba wariya kan halka mu jira war waxaanu kabti karinta la dhahaa hadda la toosinaya ya waxaan dhan waa anaga waxaan hawsheeda ma ahan moogta anaga waxaan waa wax ma iska soo habaysan jirnay socodmada jirnay runtii inay leeyin kuwan hal mar baan ku kala bixinay leeyin baa laga yaabaa halka Chelsea qorshe kale wadato Chelsea waa ka lagu soo tuuray City ay soo tuurayaan ya wallahi haya caawo marka City ay taariikhda man kaaga tagay adigu dhaada runtii kulay finalkii baa la joogaa Chelsea waan arkay doona caawa waxay la yimaadaan Man City waa kan Sterling dhacdo caafimaad hore ka baas ma qabuujida fiiri abaaru leeyana macnaha war dadkan Man City afka rujo dhaga la siinay geeda De Bruyne waa kan way ciyaarayaan kuwa kan City marka afka hore goolka armaan gool kala tagnaaba Timo ayaa ciyaaraya istil afka hore goolka Bona Timo Werner wallahi wajab abo kale kan markan Sterling wallahi kan Sterling afka hore goolka Raheem Sterling still الله واكا بل أفرس واكا ما توسايو إنه هالجول عفمات قو ما جرتو قف كاسنيك كوسو بلو ذكور جرانكا أرجو ديلا أفرس جول هيا أي سيس وقصو قياس كور بل أفرس جول كسترين هدو جرب خسارة مجدا قف كيف تسد وقصو بلو كرتنيك عين كانوا كلا أود حتى نيكا ينوسيو وريا غاي نيكا ما توسيا غاي ورنيكا ولا جوارديولا عوي سوالي فارس مركان واكن تشيلسي مال في عن بلو هيا جيس كايستير تشيلسي ولي تشيلسي او تيمو فونا اسنا واكا كي كلا وررسنا يا والله بني وما عافمات قبل عافمات ما قبل لبدودبا يا runtii waa qorshaha Guardiola waan arkay doonaa Pep Guardiola isagu sama finalku markasta uu ku finalku ku ranaan jiray waligiiba inkastoo Chelsea ay tahay kooxda ugu badan ninkan uu garaacday in badan 7 jeer galay wala Chelsea aya goolka Chelsea goolka aya والله ورر ولا قبض بهذه أردت كانوا مع عفمات قبان يا غاي والله دت كانوا مع عفمات قبان يا لبادة هنين استريح دو هالكتور تقصارين كانوا لبا يوم مريا مركان واكن بلاو او قانتي والله جابوا عبك عربي هدا كهربا ميسي كان حكى عيب فالدينان ايو يا رجي ديرا فيديتش يا فردينان رجي ديرا بو كدخ كعي او ميسي جابنا كانتي جابوا وكون كدخ جعاري وكان عياريان توماس توشيل لبدي عيار ugu dambeystay uu soo garaacay waana sababta dhiirigelinaysa kooxda Chelsea markan waa Kevin De Bruyne uu soo lixjin gaaray waa la soo dhigay gabi ahaanba oo way xireen wiilasha ninka kan ee lagu magacaabo Thomas Tuchel dhacdo ayaa ku badal la soo orday Kevin ayuu dhinac u dhigay halka Foden ba ordayay Kevin siin lahaa wali laakiin offside ma jirin walwana soo galaya markan Christensen ba soo galaya runtii ونيكا كان نيكا يبريها رودي قال يسفهمين وكان مركان جول فانتاستيك تشيلسي كاي هافرز تشيلسي جول مانشستر سيتي ابر واو كوي هوري بارا هورمري كوي هورو قادي كوكبان هبيكو هورمري تشيلسي جول مانشستر سيتي ابر ورا جيري دوني بالويش كايرو توماس توغل وحوليا وان قراع جيري وان قراع يا كوا كان نار اياه مركان كو دفتاي لوقتا والله بلا وهو قاميسي هبينكا ستنا والله يابا هبينكا ستي وهي فولي بين نقطة رنتي قيبتا كواد وانا اركي دونا Guardiola كلي عاو قربان اركيني إن لبادنا عي سوالين لكن تجل بي اوتوستي معايا تجل فابريغاس wuxuu yiri Tuchel koobku caaw isagu guulaysanay sababta wuxuu khibrad ka barnaa wiil sanadkii hore koobka laga qaaday mar Guardiola marka xigta u yimaado khibrad ka barta malaha koobkan ma la dhihi caawa Portugal bridge buu noqday taageerayaasha kooxda Chelsea bariyahan dhanba kalsooni bay qabeen ay lahaayeen waar kuwaas laba jeer baan u garaacay easy way waan garaacayna bay yiraahdeen Arbonigana sanadkii hore Sheikh Mansour Sheikh Nasir baa laga qaaday sanadkana Sheikh kale baa laga qaadayayo Sheikhyadu Bruno ma cimaamadayo runtii من هذا اللي صاري برناردو waa la saaray يعني De Bruyne dhaawac buu ciyaarta ku baxay City markaan qadka dhexe ay baxoojinayaan runtiyo waxa weeyaan nin kale baa la keenay markaan runtiyo maanta dhanba waxay ahayd City inay ciyaartoy muhiim ay ku soo darsadaan qadkooda dhexe bay ahayd bal mar kale waa kan runtii Chelsea blow caawa London kaliya ma noqonaysa blue Europe oo dhan baa blue wada noqonaysa runtii habeenada qaar sidaan bay dadku ugu weysiin jireen xitaa Salah baa ooyin ugu baxay Champions League hadda ka hor
laakiin runtii mar dambe uu sabri buu yimaaday ugu dambayntii uu qaaday sidaan buuna caawa kanu ku dhacday runtii oo hortaa baa la ooyey baa leeyahay runtii war adduunka ma jirto weli ugu cadcad goortan zuuma lahaa goortan zuuma lahaa mar horay ahayd haddii kubaddan qof soo celiyo markaan waxaa tuuraya ciyaartoyga Ederson oh no gool hayii Chelsea baana sida ku qabtay waa Chelsea champions markii labaad ee taariikhda Eduardo Mendy wiilka cajabta taariikh buu habeen ku sameeyay 2014 shaqalaan buu ahaa 2021 Chelsea ayuu Champions u qaaday oo uu Champions ka dhigay runtii Pep ayaa la garaacayo Tuchel buu gacan qaadaya Chelsea Champions ka Europe markii labaad ee taariikhda Pep Guardiola wuu suurtagali weysay habeenka inuu koobka kanu u qaado kooxdiisa City still guul dareysta buu ahaanaya 10 sano koobkan soo sugay waa habeenka ugu weynaa ee taariikhda kooxda kubadda cagta ee Chelsea wayaan runtii waa dabaaldegayaan habeenku kaybaa lagu baxsaday kantina kor baa loo qaadayaa still Man City habeenku waa fuurayaan Aguero xataa weynaya macsalaamo ayaa lagu dhahay habeenka koob la'aan baa lagu macsalaamay maxay la jamigunu kooxda ku macsalaamay doonay laakiin City wax ay meeshan la yimaadeen maanu jirin runtii Chelsea still iga u qalmay maxaa yeelay aqliga baa ciyaaray Chelsea waa blue waa xoog weyn habeenka ceenkan oo kale iyagu baa garanaya bis habeenka ceenkan oo kale Chelsea baa garanaysa Champions Europe ku tuura cimaamada Champions Europe waar ku tuura cimaamada Champions Europe kuwa kan way iska weynayaan City oo habeenku ilintu baa ka dagaadanaysa Chelsea waa ka caawa sida ku qaaday koobka Kai Havertz wallahi waa ka caawa waa dabaaldegaya